maalka iyo sultatuna maalka iyo sultatuna raadintiisu waxyaabaa diinta fasahadiyay ka mid yihiin oo nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ma di'baani jaa'icaani ursila fii ganamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali wa sharafi lidiini laba yeey oo gaajaysan oo adhi lagu sii daayey siday u ifsaadiyaan yacni say dhibtay geystaan kama dhib badna xirsi lmar jacaylka uu qofku uu jecel iyo xoolaa inuu ilaaliyo iyo sharafta siday diinta u yeelaan kursiga ragga raadinaya siyaasadda iyo magaca iyo maamuusku in badan buu diin la-aan dadka badaa oo rag badanoo kuraasida laga fujin waayey xataa diinta waa ku iibsanayaan kursiga si ay u xejiyaan gaal iyo dad iyo muslimba waa laayeen si ay maxay kursigaa u hayaan rag badan oo tujaarinina xooluun in la hela xalaal iyo xaaraan xaggay doontaba ha ka keentee dee soomaaliduna dhaqan ba iska lahayda xagga xoolaha inta ku fiicani marka horeba waa yaray dee walba geelaynu qaadi jirnay soo maaha dhaqankii baadiye soomaalidee hore dee geel qaad buu ahaa geelana dee nin muslimaa dareersaday oo iska lahaa kan dambana wuxuu u eg yahay xooluun ma yihin lacagun ma la helayaa waxay doonaan ka soo baxaane lacagun ma la helayaa labaduba lacag raadinta iyo mansab raadintu diinta qofka way fasaadiyaan buu nebigu leeyahy sidaa labada yey ee adhiga lagu sii daayey yeydu way dhib badan yihin yeyda qaarkood xoolaha inay dhaqdhaqaaqa u diidaan oo wada laayaan mooyaane marka hore maba cunaan markay wada dam ka siiyaan kadib bay wax ka cunaan halka libaaxu uu neefku cunayo unuu qabtay inta kale aanu dan ka yeelanin marka maalka iyo sultadu asliyan waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhibta keena marka waxaan leenahay taxadiga koowaad ee taajirka muslimka ah hortaagani waa siduu xalaal u miiran lahaa siduu wax xalaala uu heli lahaa nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa yaأti calى الnaasi zamaanu laa yubaali اlmar'u maa akhada minhu amin alxalaali am min alxaraam xadiiska bukhaari dadka wakhti baa ku iman doona dadku aanay u aabba yeelaynin xoolaha ma xalaal baa lagu soo helay mise xaaraan ba ay kugu soo galeen aan loo aabba yeelaynin xooluun ma yihiin uu muhiimaddu tay waan xoogsaday buu ku leeyahy war haya waxaad ka xoogsanaysaa armaanay xalaal ahayn war waxaasi waa iska xooluun in la helo ayaa agtiisa mudan iyadoo aynu ognayna aakhiro waxyaabaha labada su-aalood leh wa can maali min ayna iktasaba wa fiima anfaqa labada su-aalood leh imaamu nawowina raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa majmuuca wuxuu leeyahy baabu lwaraci fi lbayc wa gayrihi waijtinaabi shubuhaat dabeetana wuxuu cinwaanka ugu qoray wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim ina rabbaka labilmirsaad labada aayadood buu ku qortay xalaashuna waa caddahay siduu nebigu sheegay xaaraantuna waa caddahay siduu nebigu sheegay waxyaaba u dhaxeeyo dadka intooda badan ee aanay garanayninna waa jiraan waxa aanad garanaynin qofka ka dhowrsadaa diintiisuu dhowray qofka ku dhaca shubahaadkaasi inta badanina wuxuu la mid yahay ninkii seeraha boqorka dacalkeeda xoolaha ku raacay xadiidka riwaayaddiisa bukhaarina waxaabay leedahay faman taraka ma shtabaha calayhi min alith kaana lima stabaana atrak ninka iskaga taga waxa uu kala garan waayo xalaashooda iyo xaaraantooda wixii u caddaada dee xoog buu uga tegayaa buu yidhi waman jtara'a ninka ku dhiirada calaa maa yushak fiihi min alithm aw shaka an yuwaaqica mastabaan shubahaadka iyo waxaa la garanay ninka inta goor iska xaabsadaa waxay u dhowday kaasi xaaraantana inuu marka dambe xaabiyo marka waxaan leenahay challenge-ka koowaad waa sidii xalaal iyo xaaraan loo kala sooci lahaa oo ninka taajirkii ugu xalaala ama caynta waxa uu iibinaya ka baac mushtaraynaya ha noqoto inay shay xalaala tahay ama kontraagyada uu gelaya qaabku wuxuu iibinaya qaabku tijaarada u samaynayo ha noqotee wax xalaala in laga baac mushtareeyo xaaraanta laga taga waa mushkilada casriga kan badanaysa waana sababaha sii badiyeyna waxaa ka mid ah nimaan isaga agtiisa xalaal iyo xaaraan aqoon baa wuxuu agtooda yaallay
chinese aan ilaahayba rumaysnayn ama mid ahlu kitaaba ama mid majuusiya ama mid hinduus dadaan ilaahay iyo rasuul toona rumaysnayn baynu wax kala gadanaynaa iyagaana sunnaaca inagu caalam alislaami dee ceebta haysataa sheekh alghazali raxmatullaahi calayhi baa wuxuu odhan jiray haddii la yidhaahdo dunida wax walowba halkaagii ku noqo waxaan ka cabsi qabaa buu yidhi muslimkoo wada qaawanun in la arko ilan waxba may samaysana buu leeyahy wax iyaga ku hadhi lahaa ma jiro innagu waxba maynan samaynin saa daraaddeed waxay noqotay waxaynu ka baac mushtareen oo dhamme waxay gacan ugu jiraan oo gacanta ku hayaan nimaan isagu xalaal iyo xaaraantoona aan eegaynin marka qaabkaad kontraaga ula gelaysaana waa mushkilad caynta aad iibsanaysaana waa mushkilad